dalka oo isgarabsanaya kuwaasi oo inta badan wadooyinka soo gala deegaanada ama degmooyinka koonfurta dalka Soomaaliya inta badan isku furayay howlgalladaasna waxaa ugu qaariyay howlgalayaal al-shabaab ah oo ka mid yahay howlgalihii al-shabaab ugu magacaabaa deegaanka Ufurow gobolka Baay kaasi oo habeen saxaxa ciidamada gaarka dowladda koonfurta dalka Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada xoogga dalka ay qaariyeen sidoo kale ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka gaarka dowladda koonfurta dalka Soomaaliya waxay qaariyeen joogihii al-shabaab ugu magacaabaa jidgooyada qurac jooma iyo magaalada Xudur kaasi oo in badan dhibaato ku hayeen ummadda Soomaaliyeed ee halka ku dhaqan waxaan u suurta gashay ciidanka gaarka dowladda koonfurta dalka Soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka inay ninka horjoogaha ahaa iyo ciidankiisaba ay laayaan sidoo kale ciidamada gaarka dowladda koonfurta dalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka waxay howlgallo ka sameeyeen degmada Buur Hakaba iyo degmada Qoryooley oo iyagana tuulooyin cusub ay ku qabsadeen iyo saraakiil ciidamada shabaabka ahaa ay halkaas ku laayeen kooxaha hooyaad iyo hargalgeedka sidaad ogtihiinba maalmahan xaaladooda aad bay u xumeed oo way si jabayeen shacabka Soomaaliyeed guud ahaan Soomaaliya iyo shacabka koonfur galbeedba waxay go'aansadeen inay gacan ku siiyaan ciidanka gaarka dowladda koonfur galbeed ciidanka xoogga dalka inay deegaanada koonfur galbeed lagu xoreeyo kooxaha nabadeedka ee al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka meelaha deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxay iskooda isku abaabuleen inay ka hortagaan kooxaha nabadeedka al-shabaab oo lacaga baad ah inta badan weydiiyo shacabka Soomaaliyeed beelaha deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo iskooda isku abaabulay ayaa waxay hadda dagaalo xooggan miyiga fog deegaanada koonfur galbeed ay ku dhaxmarayaan kooxaha nabadeedka al-shabaab kuwaasi oo go'aan ku gaaray inay iska kaciyaan dadka duleystay oo lacagaha baadkana ka qaada ee al-shabaab inta badan dhibaatada ku haya ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya marka warbixintan maanta aan dhiibin waxay tahay sidii loo sifayn lahaa haraaga kooxaha hooyaad iyo hargalgeedka al-shabaab